halkani waa taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeennii wax weydiin ogaal ka sheegne qodobada war iyo wacaalaanu idinka hayno carreeda waxa ugu dooroon magaalada Abu Dhabi oo ku dambeysay qabo Yurugubo ina kaahinoo sheegay in xisbiga wadani uu ku ciyaarayo dhuxul dab hoob islaatay Daalibaan oo dani u rur sheegtay Maxamuud Xaashi Cabdi oo yiri gardabadeed baan guugunacay madaxweyne Biixi oo Addis Ababa u tagi doona inuu lafta soo jabiyo siyaasi geeljire oo qaleelka ugu xiray oosha bariga Burco iyo Maxamuud Xaashi macallimo oo Turkiga rabrab loogu qaaday xirsi oo farta ku fiiqay ninka Muuse Biixi runta u sheega iyo Cabdiraxmaan Cirro oo hadda sheegay inuu dawirsan doono wararkaasi iyo warar kale oo dheeraad ah ayaan idin ku soo dhawaada barnaamijkeena kooxda duurka dhawaan ka soo xarootay ee Daalibaan ayaa waxay sheegtay xilliga ay hablaha ama bilcanaha dalkaasi dib fooda u geli doonaan waabaha dugsiyada sare ee dalkaasi oo ay ka maqnaayeen tan iyo kalkii kooxdu taabka ka buuxsatay dalka Afghanistan. Kooxda ayaa sheegtay in bisha diraaceed ee Maarso guud ahaan hablaha Afghanistan dib ugu noqon doonaan goobihii wax loogu soo xariiqi jiray ee dalkaasi. Afhayeenka ururka Daalibaan Dabiixullaahi Mujaahid oo u waramayay kalshinta warka dabsata ee AB ayaa wuxuu biniixiyay in hantiyood holoftay oo hayntu gabaabsi ku tahay dalka Afghanistan taasina ay sababtay in la tahli waayo dhisida goobo ay wax ku bartaan xaawilada dalkaasi maadaama oo kooxdu soo rogtay in aanay isku goob wax ku wada baran karin wiilasha iyo gabdhuhu taas oo kooxdu u aragto dab iyo dhagax la iskuma dhuftay kala dhowraay. Dabiixullaahi Mujaahid ayaa sheegay in dadka reer Afghanistan ay u eg tahay inay xilligan yeeshaan iskaashi aad u weyn si ay uga gudbaan arrimaha cakiran. isagoo hadalkiisa sii tarminaya wuxuu sheegay Mujaahid in dugsiyada waxbarasho ee dalkaasi gebi ahaantood ay habluhu dhigan karaan xilligani oo aanay ka geesiyo gafuuri doonin mar dambe in habluhu wax bartaan. Arrinkan Daalibaan la shirtimi ayaa daba kuutinaya iyadoo duulka reer galbeed ay aad carabka ula dhacayaan in Daalibaan dumarka ka hirtay inay wax bartaan iyagoo kooxda ku tilmaamay duul qalabsan oo aan ogolayn isu furfurnaanta carreedeg. docda kale duulka reer galbeed ayaa ku xila furay inay Daalibaan ku soo yuubaan waxoogayga uskaga ah ee ay taartaan dalka kale ee tamarta dhaama. Haddaba arrintaasi ayay reer bogax ku sheegeen in kooxdani tahay duul aan weli falin wixii looga fadhiyay oo ay ka mid tahay arrinta waxbarashada haweenku. isaguna waxaa xalay xigsiin dambe isa soo taagay dhalada magaceeda la yidhi codka bariga Afrika madaxa abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga wadani Cabdilaahi Jaamac Ismaan Geeljire waxa uuna u sheegay quraarada dacwadda loo gudbiyay maxkamadda sare inaanay marka horeba xisbiyada mucaaradka la yidhi aanay ka mid ahayn. wuxuu sheegay inay dacwadda gudbiyeen golaha wakiilada iyo siyaasiyiin xintamayay kana shaqaynaya ku xumayn kumuu samayn wax faahfaahine Geeljire raggaasi cidda ay yihiin iyo meesha ay taxdhigaan. waxaa kaloo uu sheegay isagoo hadalkiisa sii wata inaanu go'aanka maxkamadda sare isaga iyo xisbiga wadani qusaynin. wuxuu kaloo sheegay mar wax laga weydiiyey sababihii ay u tageen ceelka Burco iyo waxay kala kulmeen inay doonayeen sida ay bulshada gobolka Togdheer ugu sheegi lahaayeen in wadani maqaarka loo marmariyay gudoomiyaha ururka wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan. wuxuu sheegay inay u toogahayeen sidii oosha bariga Burco ay ugu soo biiri lahaayeen ururkan haddii xilligiisii dhamaaday ee ay hadda kaga wareegayso labada biyabuuf. mar la su'aalay in ururka loogu ballan qaaday hambadiisa beesha Arab wuxuu ku jawaabay aan ku saxeex ururka wadani looma ballan qaadin loomana carab lulin beesha Arab. hase yeeshee waxaa loo sanqaday in siyaasi Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde loo mariyo suuf iyo Gazangeyr. wuxuu sheegay in Jirde in loo soo joogay sidii uu uga xuub siibtay ama uu uga dhaqaaq joogsaday xisbiga wadani. halkaa markuu marayay ayaa la weydiiyey haddaama beesha bariga Burco ayaa loo ballan qaaday ilan Jirdeba waa reere. Cabdilaahi Ismaan Geeljire wuxuu ku jawaabay mar haddiiba ay jirtay jeegaan ka dhaxaysay habar jecel iyo Sacad Muuse uu kala tuuray madaxweyne Biixi oo ku soo celin waayay hagbadda gacantii labaad taas ayaanuna ka faa'iidaysanay. wuxuu sheegay inay oosha bariga Burco meel kasta isla soo galloobtay waa ba'anayey waa hoognayey xisbigii baana ka qaaday farteedii baanu eednayay iyo calaacal. wuxuu sheegay isagoo warramaya in loo soo joogay tabiya xeeladlaha Maxamuud Xaashi Cabdi oo la jiijiidayo ayna goobjoog ka ahaayeen isagoo maratuura. wuxuu sheegay inay oosha bariga Burco muusanaabeysa xaggooda nafta u soo foolaryeen. wuxuu sheegay inay u adkaysan waayeen haddii ayba yihiin oosha galbeedka Burco
reerkan barooranaya isagoo intaa ku sii daray in kolleyba ay oohin u tahay loona baahan yahay inay waddani ka dhex ilmeeyaan. ugu dambeyntii waxaa la weydiiyey meesha uu ku aayooday wadahadalkii u dhexeeyey kooxda Xaashi iyo xisbiga waddani. Geeljire ayaa si afgabaasiya u bitiyeen Maxamuud Xaashi ay markii horeba dani waday, sidoo kalena uu xaalkiisu ahaa nin faras dabadii ka degay meel uga tolmoon buu waayey. wuxuu sheegay inuuna weydiistay xisbiga waddani guddoonkiisa, hase yeeshee aanu gobada ugu dhiijinay una sheegnay in xirsi lagu maxrelay, hase yeeshee isaga ahaan waa Xaashi aanu golaha dhexe ka buuxsamin. wuxuu sheegay inay ilaa hadda sugayaan in Xaashi, hase yeeshee uu isagu rajo kale sugayey oo wax kale u muuqdeen ama uu farda kale iskala gawaan raacay. isaguna wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland oo ku sugan ceelka Laascaanood ayaa maanta u dibanjaaqay jibsinta af Soomaaliga idaacadda Faranjiga BBC. wuxuu sheegay in xisbiga kulmiye taageersan yahay kuna qarxay go'aanka ka soo baxay maxkamadda sare ee Somaliland. wuxuu sheegay inuu saanqaadka siyaasadeed oo uu ka shaqeeyo ururka kulmiye uu waafaqsan yahay, sidoo kalena aanu ka labalabayn doonin, xagna uga beydhi doonin, kuna taagan yahay xeerarka dalka u yaala. wuxuu sheegay amankaba ciddii ku gafi doonta ama beerdarayn doonta, sidoo kalena iska gudhin doonta marka runtu timaado in loo wada joogi doono. wuxuu sheegay in dalkani uu yahay dowlad qaab dhismeed leh oo aan isa saarnayn, oo kala guran, isla jeerkaasna kala madax bannaan, oo aan dhanka kale ku jirin wax cuyub iyo canlabeebina. wuxuu sheegay teeriyo intii ay socotay hawsha furista ururada siyaasadda iyo dacwadii loo gudbiyey maxkamadda sare ay xisbiyada u cidiya waddani iyaguna barbar wade muran, buuq iyo nacfijiid. wuxuu sheegay inay wadeen kicin, jaansaar, abaabul, qabyaalad iyo ka kacaay. wuxuu sheegay taa dhigeeda inaanay jirin wax qordiis ah oo ay ku haysa xukuumadda talada haysa iyo ururkeeda kulmiye. wuxuu sheegay Maxamed Kaahin Axmed inay si weyn u soo dhoweynayaan go'aankii maxkamadda dastuuriga ahi shalay soo saartay ee furista ururada siyaasadda, in xisbiga waddani aanu halgankii nafurka ahaa ee waddankan loo soo maray waxba ka ogeyn, waxaanu ku ciyaarayaa buu yidhi dhuxul daba oo bislaatay. waxaanu howlgelinaynaa guddidii diiwaangelinta ururada iyo asxaabta qaranka si ay hawshooda u qabsadaan. guddidii doorashooyinkuna waa inoo diyaar buu yidhi, doorashooyinkuna way inoo dhacayaan haddii eebba idmo. qodobada maxkamadda dastuuriga ka soo baxay ayuu sheegay in xukuumaddu ay fulin doonto oo u xilsaaran tahay. in hadda iminka muddo uu murama ka socday dalka, xusbiyada mucaaridkiina ay muranada wadeen, oo arrinkaasina uu ka taagnaa qaabka loo furayo iyo cidda furaysa ururada siyaasadeed ayaa muddo muranku ka taagnaa. shirkan jaraa'id waxaan maanta u qabtay inaan halkan ka caddayno marka ugu horreysa horta qaranka Somaliland xeerar, qawaaniin, dastuur ayuu ku socdaa. waxaana kala socodsiiyey qaab dhismeedka qaranka dastuurka Somaliland uu jideeyey. xisbiga kulmiye xukuumadda talada haysa maxay ka qabaan, maxaan ku dhahdaa arrintan muranku ragga qaarkood ay gelinayaan. horta marka ugu horreysa intaynu qaranka ku nahay waa buugga kooban aan hadda gacanta ku hayo ee la yidhaahdo dastuurka jamhuuriyadda Somaliland. qaranka Somaliland intaasuu ku yahay, ayuu qaran ku yahay. qaranka markaa qof kasta hadduu madaxweyne yahay iyo hadduu maxaanku idhaahdaa ganacsada meherad ka soo jeeda yahay, ila ganacsadaha meherada ka soo jeeda dastuurka qaranka ayaa u jideeyey, liisan buu ku haystaa, sharci buu ku haystaa. nin waliba intaasoo qura unbu sharci ku yahay. kaa markuu ninku laabo sharci allaaliya sharci uu yahay iyo wax uu yahay toona ma jiraan. sideedaba markaa ummad kasta oo nool iyo qaran kasta oo nool taariikhdiisu waxbay buddhib u ah. dastuurkan qaranka Somaliland marka aad eegto waxyaalaha uu xiganayo, aragta dastuurkani waxa ay ku qotonto, waxa uu tixraacayo, waxa uu aasaaska ka dhiganayo, waxa ka mid ah aragta dastuurkan qaranka Somaliland ee ay xusaysaa qarankanina waxa uu ku taagan yahay taariikh halgameed oo dheer oo muddo qarniye saayida maxaan ku dhahday hadda soo jirtay. dastuurka xusaya halganadaas oo ay ugu horreysay halgankii daraawiishta, xarunta tale xaruntiisu ahayd ee 1900 maxaan ku dhahdaa la aasaasay. intaa waranay waxaanu ku darno ma ogin wax weydiin ogaal ka sheegne. waa Maxamed Aadan Dir, taliye kulanti dambe, nabadgelyo iyo nooli kulante.
xifdigii qur-aanka iyo barashada xakiimka iyo xasanaadka ducada iyo xadiisyada rasuulka iyo xisaabaadka dunida iyo xuquuqdii shareecada haddii xiisa kuu galo xifdiyo carruuraha cidlo laguma xoore nuuralhidaaya ka xaadiri xubbigaad jeclaadaye ka xaadiri nuuralhidaaya haddaad u jeel qabto ama u goolmoon tahay barashada diinta maankaaga oo qabatiba qur-aanka eebbe luuqda suuradaha oo aan lagaaga daba dhufan lahjada diinta nebi maxamed ee carabiga barashada yagleelka yoolka islaamka taxdhigista axaadiista nebigeena subanaa nabadgelyo nolol iyo weliba naxariis korkiisa ha ahaatee sida loo tukado ama food loo dhigo sujuudda eebbe qaabka loo baryo iyo cilmiga diinta la xidhiidh nuuralhidaaya oo kuu fududayn doonta dal iyo dibadba barashada diinteena suuban kala xidhiidh wixii faahfaahin aleennada shaashadda kaaga muuqda